maxkamad ku taala dalka Masar ayaa 10 sano oo xabsi ah ku xukuntay gabadh lagu magacaabo Xaniin Xusaam oo caan ka ahayd barta TikTok. Gabadhaas waxaa sidoo kale lagu ganaaxay $13,000 in ay bixiso. 3 gabdhood oo kale ayaa lagu kala xukumay min $13,000 oo ganaax ah in mid kasta ay bixiso, waxaana lagu helay dambi ah ka ganacsiga dadka. waaxda dacwad oogida Masar ayaa haweenkaas ku eedeeyay dambiyo ay markaa ka mid yihiin ku xadgudubka anshaxa qoysaska iyo bulshada Masar, iyayna markaas ka qayb galeen baahinta soo banbixinta iyo dhiirigelinta gabdho kale iyo ka ganacsiga dadka intuba. sidoo kale eedaha haweenkan loo soo jeediyay waxaa ka mid ah in lacag ay u soo direen maamulka TikTok, taas oo looga bedelanayay in ay baahiyaan muuqaalo anshax xumo ah si ay markaa u kordhiyaan dadka ku xiran iyo daawadayaashooda waa aalada TikTok, iyo in ay markaa gruubyo ka samaysteen WhatsApp-ka ay gabdhaha uga soo markaa qaadanayeen muuqaalo iyaga oo markaa ku dhiirigelinayay in ay iska soo duubaan oo ay soo bandhigaan. haweenkan la xukumay waxaa kale oo lagu helay in gabdhaha yaryar ay markaa ku dhiirigelinayeen in ay iska soo duubaan muuqaalo anshax xumo ah iyo inay isku dayeen inay ka dhuntaan cadaaladda, aynan taleefanadooda iyo barahooda bulshada ku xireen barnaamijyo sir ah. booliisku waxay xireen Xaniin bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay, waxaana ay ahayd qof ay warbaahinta Masar ku naanaystay gabadha TikTok. waaxda dacwad oogida Qaahira ayaa Xaniin ka soo qabatay jaamacadda Qaahira oo ay dhiganaysay, waxaana ay xilligaasi daba socdeen muuqaal ay soo dhigtay barteeda TikTok oo gabdhaha ay markaa ku weydiisanaysay in ay muuqaal iska soo duubaan iyagoo guryahooda jooga, kadibna lacag loogu bedeli doono. kadib jaamacadda Qaahira waxay gabadhan ardayda ahayd u gudbiyeen waaxda sharciga si loo weydiiyo su'aalo ku saabsan dhaqanka ku cusub bulshada ee ka dhanka ah anshax iyo qiyamka jaamacadda, sida lagu xusay qoraal ka soo baxay jaamacaddaasi sanadkii la soo dhaafay. madaxweynaha jaamacadda ninka lagu magacaabo Mohamed Usman Al-Qasht ayaa waxa uu sheegay in ciqaabta gabadhaasi go'aan laga gaari doono ilaa xilliga ugu dambeeya casharadeeda. muuqaalka ay gabadha ka soo muuqatay waxay gabdhaha ku weydiisanaysay inay ku soo biiraan shirkad ay aasaasatay. waxay shuruudaha ku sheegtay in gabadh kasta aysan ka yarayn 18 sano, in ay jir qurxoon tahay oo ay hubqaad leedahay, iyo in ay muuqaalo iska soo duubaan oo la baahin doono kadibna lacag la siin doono. qiimaha lacagtu waxay u dhaxaysaa baa leeyahay $36 ilaa $3,000 Mareykanka ah. Xaniin ma aysan sharaxin nooca shaqada gabdhaha ay qaybta ka noqonayaan, balse waxay muuqaalkeeda ku sheegtay in aysan doonayn gabdho qaawan iyo in aysan markaa aqbalaynin hayadeeda in lagu xadgudbo, iyo inay markaa ku shaqayso si sumcad wanaagsana oo markaa aan sumcadeeda la dilin hayadeeda, oo sida hadalka Xaniin u dhigtay. waraysi ay siisay telefishin ayay markaa ku sheegtay inay dalbatay 20 gabdhood oo bog cusub ku soo biira oo iska soo duuba muuqaalo 3 daqiiqo ah, balse warbaahintu ay ka been sheegeen oo ay ka dhigeen 30 ilbiriqsi oo keliya. waxa ay ku adkaysatay in waalidiinteeda ay ansixin jireen muuqaaladii ay gelin jirtay barteeda TikTok.